waa safar aan ku dul istaagi doono dal yaroo ku yaala bartamaha Yurub iyo Aasiya balse leh taariikh fac weyn dhaqan hodana iyo horumar si xawli ah ku socda waxaan booqan doonaa dal dunidu ku tilmaanto dalkii sameeyay khamrigii ugu horeeyay dhulay hareerayeen buuraha waaweyn ee Qowqaas waa wadan ay malaayiin qof sanad kasta u tagaan dalxiis daawadana la joogo ilaa dhamaadka muuqaalka si aad u fahanto una barato dalka Georgia iyo waxyaabaha ka dhigay mid ka duwan dalal kale ee caalamka Georgia waxay ku taallaa gobolka koonfurta Qowqaas waana dal ku yaala halka ay ku kulmaan qaaradaha Yurub iyo Aasiya waxay xuduud leedahay Ruushka oo dhinaca waqooyi ka xiga Turkiga iyo Armenia oo dhinaca koonfureed ka xiga Azerbaijan oo dhinaca bari ka saaran halka dhinaca galbeed ay kaga beegan tahay badda madow dalkan goobta istiraatiijiga ee uu ku yaalo ayaa ka dhigtay marin muhiim ah oo isku xidha Yurub iyo Aasiya dalkan wuxuu ku fadhiyaa dhul dhan qiyaastii 96700 oo kiiloomitir walba jibaaran waxaana lagu yaqaanaa buuro dhaadheer dooxooyin cagaaran webiyo qulqulaya iyo kaymo qurux badan quruxda aan isbedelin ee Georgia ayaa ka dhigtay mid ka mid ah dalalka dalxiisayaasha ugu badan soo jiita xilli kasta waxa ku nool qiyaastii 3,700,000 oo qof inkastoo aanay ka mid ahayn dalalka dadkiisu badan yihiin haddana shacabka Georgia waxaa lagu yaqaanaa martisoor ilaalinta dhaqankooda iyo jacaylka u qabaan dalkooda caasimadda dalku waa Tbilisi waana magaalada ugu weyn uguna muhiimsan dhinaca dhaqaalaha Tbilisi waxay caan ku tahay dhismayaal taariikhi ah wadooyin soo jiidasho leh iyo isku dhafka taariikhda iyo bilicda la yaabka leh taariikh ahaan Georgia waa mid ka mid ah dalalka ugu fac weyn gobolka Qowqaas qarniyo badan waxay lahayd boqortooyin awood badan waxaanay ahayd meel ay ku kulmaan ilbaxnimooyin kala duwan dadka dalkan wuxuu qaatay diinta Masiixiyadda horaantii qarniga 4 taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dalalkii ugu horeeyay si rasmi ah u qaata diintaas qarnigii 20aad Georgia waxay qayb ka noqotay midowgii Sofiyeeti kadib burburkii midowga Sofiyeeti waxay dib loo soo noqotay madax banaanideeda sanadkii 1991 tan iyo markaas waxay wada dib u habeyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyadoo noqotay dal si joogto ah u kobcaya maanta dhaqaalaha Georgia wuxuu ku tiirsan yahay dalxiiska adeegyada beeraha tamarta iyo ganacsiga dalku wuxuu caan ku yahay soo saarista khamriga lawska biyaha macdanta iyo midhaha kala duwan dawladda Georgia waxay si weyn u dhiirigelisay maalgashiga taasoo sababtay in shirkado badan oo caalami halkan ay ka howlgalaan dakhliga qofka sanadkii soo gala ayaa si tartiib ah u kordhaya waxaana si joogto ah u soo hagaagaya heerka nolosha sanadihii u dambeeyay mushaharka shaqaalaha Georgia waa kala duwan yahay iyadoo ay ku xidhan tahay xirfadda iyo goobta shaqada shaqooyinka tiknoolajiyadda bangiyada caafimaadka iyo engineering ayaa ka mid ah kuwa laga helo mushaharka ugu wanaagsan wax soo saarka gudaha Georgia waxa uu gaarayaa ku dhawaad 35 bilyan oo dollar sanadkii halka celceliska mushaharka bishii uu yahay qiyaastii 2300 laari ama ku dhawaad 850 dollar dalkani waxa uu leeyahay jaamacado tayo leh oo ay ka mid yihiin Ivan Ekfeshi Tbilisi State University iyo Georgia Technical University sanad kasta arday badan oo caalami ah ayaa waxbarasho soo doonta Georgia maadaama oo kharashka waxbarashadu uu ka hooseeyo dalal badan oo Yurub ah sidoo kale jaamacadda Ivan Ekfeshi ee Tbilisi waa jaamacaddii ugu horeysay ee casri ah ee Georgia laga aasaaso waxaana la aasaasay sanadkii 1918 waxaana aasaasay taariikhyahaankii caanka ahaa ee Ivan Ekfeshi waxaana maanta wax ka bartaa ku dhawaad 22,000 oo arday taasoo ka dhigaysa jaamacadda ugu weyn uguna caansan dalka Georgia sida dalal badan oo Yurub iyo gobolka Qowqaas ku yaalaba Georgia waxay sidaa dadka ajaanibta fursad ay ku heli karaan deganaansho sharci ah iyagoo u maraya shaqo waxbarasho ganacsi ama maalgashi dadka buuxiya shuruudaha sharciga waxay codsan karaan deganaansho rasmi ah halka qaar kalena ay mustaqbalka heli karaan jinsiyadda dalka Georgia waxay leedahay goobo dabiici ah iyo kuwa taariikhi ah oo aad loo booqdo magaalada qadiimiga ee Tbilisi Old Town kaniisadda Greek Trinity Church
gobolka buuraha leh ee Kasabegi, godka Prometheus Cave iyo xeebaha magaalada Batumi ayaa ka mid ah meelaha ugu caansan ee dalxiisayaasha soo jiita. meesha ugu sarreysa dalka waa Monte Shakara oo ka mid ah buuraha Qawqaas oo dhererkeedu gaadhayo in ka badan 5,000 oo mitir. Georgia waxaa mara webiyo badan waxaana leedahay cimilo kala duwan. buuruhu waa qabow halka ay xeebuhu yihiin kuwo diiran. isku darka buuraha, kaymaha iyo xeebaha ayaa Georgia ka dhigay dal leh muuqaal dabiici ah oo aad u qurux badan. ugu dambeyn, Georgia waa dal dhul ahaan aan weynayn balse leh taariikh qoto dheer, dhaqan soo jireen ah, dabeecad qurux badan iyo dhaqaale si tartiib ah u kobcaya. waa dal tusaale u ah sida taariikh, dhaqan iyo horumar casri dal bedeli karaan. ku mahadsanid daawade waqtigaaga aad ku bixisay daawashada muuqaalka. haddii aad wax cusub ka faa'iiday, nagu taageer, like, share iyo subscribe. waan kulmi doonaa muuqaalkan xiga insha Allah.